dhaqan iyo caado aynu ka dhiganay Soomaali hadaynu nahay qof baa fal geysanaya qofkii geystay la aadi maayo amba la dili maayo amba wuxuu lagu sameyn maayo qof kale maskiin oo daalhi alla iska yahay baa dhab la siinay la xidhaya hadda arinkan si degdeg ah wax looga qabanin waxaa dhici karta in qofka marka la dilo in iyadoo muuqaalkii tooska loo duubayo lagu shubo in gas lagu shubo iyo baasiin taraq marka lagu gubo taasna waa dhici doontaa haddaan dawladdan Muuse aanay ka qaban wax السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي قاليقا كحرة channelkeena soo dhawaada ilaahay hay muhiimahayni weeyas marteenena hadda noo subtahay safrata noo saar like noogu darso maqalka meel dheer noogu gaadho habeen ma wanaagsan fiid ma wanaagsan waxa inta wanaagsan oo walaashin oo idin leh barta casiga cadeeya waxaan idin wada muuqaal aad iyo aad ii farx galiyay markii hore waska murugsanay waxaan lahaa bes muuqaalka dad ba ka soo hadlay dadkii dhibka geystay ay isku meel ka soo jeedaan balse faraha ilaahay ma simin dadku midxuuna misanba waa leeyihiin marka muuqaalka ay daawadaan idin leeyahay waa gabdho si kal iyo laaba u soo hadlay si sharaf iyo karaami cisla u soo hadlay weeyaan aad iyo aad baan idin salaamaya oo idin bogaadinaya inaad kuwo idinka kale aad soo saartaan baarjeynaya gabdhahaas waa wax dugsiye iyo Yasmin Aaleeye weeyaan waa laba gabdhood ma sha Allah weeyaan soo dhawaada idin leeyahay المقالكين ugu horeeyay aynu ka qacsayn hadii Allah wada la idmo la daawada koodi laakiin maanta qofka qabiil caaya ama reerta koora ama wax dhibaateeya si lagu xirawo adag taasna waxaan arkaa kale maanta markay maxay ahayd toolay caasimadii Hargeysa ee dawladdu ammaan ka socday Soomaaliland baawrka lagu lahaa marka qabyaalad dirteed lagu dhex dilo inan sharafteedii iyo sumcadeedii lagu baabiyo maxay noo haray waxaynu yeelan xataa shalay toole iyada oo maxay ahayd toolay ay inantaas imka ku dhex dishay inanta laas caanood iyada joogtay qabiilo dhan ay ku caayis qabiil dhan ay faarisa gelis ay caayis cid joog oraneen cid la hal maantana waxa timid in caasimadii inta loogu imaado lagu dhex dilo wiilna gabadh masaakiina oo aan wax aliyaalo waxay galabsatay aanay jirin ani waxay ka ogid aanay jirin aan fal ku lahayn aan waxba ku lahayn caasimadu ma aha caasimad reer u go'an cid walba way degantay waa meel caasimadii Soomaaliland weeyaan cid walba ay imanayso marka caasimadii dhacdooyinka sidan ay ka dhacayaan inta takoor imka dawaa takoor marka takoorka inta lagu ka dhacayo maxay iyadu intay iyada laas caano dad soo dagaalantay laas caano de qalad way dilay garba u dileen iyada inta laas caano dadka ku dhaxaytimis marka tago magaalo leeyaga badan yahay si asaan ay haw anu caaya maxaa laas caano dadkii gelinaya anu arkayna dadkii ku socda maya waxa jirta waan tagnaa magaalooyinka laas caano baan tagnaa garow waan tagnaa meel kasta waan tagnaa si idablan joogna aadami koodi ma jiro cid aan afaar galay cid la caayamina waana qalad maanta qofka Hargeysa dhex jooga caytamaya dawladda caayaya magaalada بختار البطورة. دولة ميدها كسبة. أما بالله كيه. إن أنت يرى إن لاسعانو بحجوكتي قبيل كن لاسعانو دقن عايز عقال إيو الشيخ إيو شريف إيو مرحوم أنت بالله. كل عايز لاسعانو تحديدا. عدو حقيقة بتمشي. ما قرأتها. ما أنت اللي سوق بيبه هرجيس اللي يقولي ضد كم مساكين تروح اللي يلا يحد أبيهين شرين قبر ما فيش كا أنا قبيلتنا الشقة كلها هاي والله بالله horta waa waxyaabo aad iyo aad loo gubto tasbeen maahan aad iyo aad bimaasan tahay gabadhaas iyo gabadha kaleba waa waxyaabo khaldan waxaa jirta haddii dhaqan iyo caado aynu ka dhiganay Soomaali hadaynu nahay qof baa fal geysanaya qofkii geystay la aadi maayo amba la dili maayo amba wuxuu lagu sameyn maayo qof kale maskiin oo daalhi alla iska yahay baa dhab la siinay la xidhaya taasna waa dhaqan aynu leenahay Soomaali waa dhaqan aynu leenahay hadda ka hor waxaa jirtay la sacaanood 2004 3 5 meelahaas bay ahayd marka aana la isku dili jiray aano nin baa nin soo dilaya
aduu nin reer hebela nin kaloo reer hebel la dilaya ninkii laamigu iska xaragoonaya ninka gacan gudbilaha ahaa nin kaloo dee lagu dhintay lagu hoogayo maasha allaayahoo dee madax ilaahaya oo de laamigu marayaa kadh laga siinayaa kabo laga siinayaa bal muxuu geysta kii dilay waka xaragoonaya maa soo qabataan oo dishaan marka maantana tii oo dumar ah baa soo noqotay gabadh baa halkan gobolka caytantay ha ka caytantee gabdhaha intay soo qabteen iyo niman sida sheegayeen warkaasay dileen ma dileen tabtaasoo kalea markaa fidii muuqaalka laga duubay hargeysay tagtay hargeysood mid ilaahay mid alheeda alla yahay waxba geysanino maskiin ahoo maasha allahay baa intii la shilqoolay la kaxeeyey si wacan looga macaystay kadibna siday sheegayeen buur baa laga tuuray maxaa markaa faa'iida wayahay waa sida gabdhaha sheegayaan haddaan arrinkan si deg dega wax looga qabanin waxaa dhici karta in qofka marka la dilo in iyadoo muuqaalkii tooskaa loo duubayo lagu shubo gaas lagu shubo iyo baasiin iyo taraq markaa lagu gubo taasna waa dhici doontaa haddaan dowladdan muuse aanay ka qaban wax waa sax weeyaan in kii xildhibaanka aflagaadeeya kii madaxweynaha aflagaadeeya kii ama gabaygiisa kusoo bandhiga dowladnimadu say tahay iyo madaxweynuhu dhaqankiisa iyo jeelka dalaq bal shacabkiiyo shacabka dowladdu waa shacabka weyn dowladdu shacabka ku dhisan taha hawa ku dhisnaatee soo in markaa shacabkii la kala dhexdhexaadiyo kii khaldan la qabto reerihiistii la kala xaliyo soo ma aha laakiin kor baan ka bilaabananaa waxaas macquul ma ahan bal muuqaalkeena xiga aynu kusii soconno arrinkan baa la yidhi arrinkan haddaan wax laga qabanin telefaraha ka baxda ila daawada maxay ka ogeyd dhulbahante iyo isaaq iyo cid midnaba iyadu umay jirin qof magaaladeeda iskaga jirtay inta lasoo shirqoolayba inta la dilo gowda laga saaray buur laga tuuro markii dambana midda labaad iyadu hadday wax ka ogtay iyadu cid may caayin habar jeclaanay caayin isaaq baana caayin midda labaad inanta ku dilisay isaaq ku ashahaado meher waxaan gaadhnay in ashahaada ay noqoto isaaq diinteena maada diintii islaamku waxay isku bedeshay in waxyaabaha lagu daawado dadka wallaahi bilaahi tallaahi haddii aan waxaa sida ugu dhaqsaha badan aan wax lagaga qaban way ballaadhanaysaa sida nabadaana laguma joogo waa lagu ruxmanaya taatu ka xunuma birito la imanaysa war tiktok baanu khaatiyaan ka taagnaynoo qabiil saa uu wareegaya dhagaha naga galanoo maskaxda naga galay oo aan ku suganay inaan tiktok gabigeeda iskaga dhex baxno maanta ma waxa la keenay in la isku dilo oo qabiil inta la imaado lagu dilo qofkii magaalada lagu dilo Soomaaliyeed sharafteedii oo sharafteedii cawradeedii burta lagu rag iyo naaga midnaba aan loo kala hadhin sharafteedii quruxdeedii aayaheedii inta mustaqbalkeeda inta lagu duubalay ku ashahaado sidana si qurux badan maaha sidana si noloshu inba nabadu ku sii waaraysa maaha dawladuna tii horena kama jawaabin tanna wax jawaabay ma kala bixi ma arkayno dawladdu waxaan u arkaa shaqadii ay shacabka u haysay inaan qabsanayn waayo sababtoo ah war shacabkan dawladdan shacabkan bay ay u joogtaa meesha shacabka dawlad looy waxa dawlad lagu yahay nabadu ku dhisantayna waa shacabka haddii aan shacabku wax kaas been ma ahan maanta haddii dawlad afka lala galo 24 hours baa dalaq ninkii 24 saac dalaq jeelka lagu siinayaa marka arrinkan haddaan Somaliland wax ka qabanin wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi mid ka fool xun baa imanaysaa hadda anuu labadii muuqaalba midna ma soo gelinin tii hore dhulbaanta la dilayay ma soo gelin tan dambe isaaq ma soo gelin gabdhaha hadalkooda caawa ayaan soo geliyay waayo isaaq oo dhan ma wada xumaa waa barhkeed hadda ka hor gabadh waxaa wareysanayay dhulbaantaha saxaaf waxay tiri nin baa markaa qabay ninku naag horu lahaa naagtii hore baa markaa adigu faamilkeedii iyo asxaabteedii dee weer gabadhi kusoo qaadeen ha kuwa soo qaadaan gabadhi meel ay gasho meel aan galabay tirbaan waayey kadib markaa adigu waa isaaq bar ka mida maahan adigu waa in yaroo naagta faamilkeeda weeyaan baa markaa gabadhan handadasa
kadibna waxay tiri dariskaygu waa isaaq batruweeye gabdhaha waxay dhaheen isaaqa hadday kugu soo duulaan anagaa kuu ah garab kuu ah marka ma wada xumo isaaq oo dhan ma wada xuma barkood intii xun baa xun intiisana waysan tahay oo waa fiican tahay bulsho walba saas weeyaan inaba xun tahay inaba waa fiican tahay laakiin marka adigu gabadha waxay tiri garabkiinaan ahay bay tiri bay markaa ugu dhaheen gabdhahaasi iyo faamilka iyo harahayga deeganba carruurta waa la baxsan lahaa waxay dhaheen car la baxso waxay tiri adeeg baan ka dooran karin suuq baanan ka aadi karin media haddaan muuqaal soo geliyo muuqaalkii commentigii wacay weeyaan adigu docona ha u arkan weeyaan marka bulsho walba waa xun tahay waana fiican tahay wax fiican iyo waxunba waa leeyihiin marka waxaan leeyahay dowladda muuqaalka ha laga gaadhsiiyo in musabixiyo intuu wato wasiir iyo xildhibaan iyo cuqaal iyo in walba adigu magaca oo dhanba waxaan leeyahay arrinkaas waxaan leeyahay arrinkaas si degdega wax looga qabto si degdega wax looga qabto wallaahi waxaa dhici doonta in intii la dilo oo hadirto waaba xagtin iyo dhul iyo tibajiid iyo fafari waxa weeyaan waxaa dhici doonta in ama caadi loo gowraco qofka ama gaas iyo taraq lagu shido taasina waa soo socotaa shacabku hadduu kaco bas weeyaan waa siduu kacay weeyaan marka waxaad leeyahay saxaabta qaaliga aad iyo aad baa idin salaamaya muuqaalkan faafiya labada gabdhoodna aad iyo aad bay wanaagsan yihiin maasha allah baan leeyahay halkaa ka wada nabadeynta aad wadaan halkaa ka wada bilahi tawfiiq